waxay ninba magaalo kale ka yimi Hargeysa yimi wuxuu maqlay wadadan halbowlaha ah ee road number 1 la yiraahdo oo cashiya calaf ba qayb kamid ah wadada la yiraahdo kadibna wuxuu moodayay inay hablu iska taagtaagan yihiin inaan la laalayna intuu ku dhaahday inay keen ba israacayaan oo isla dheed gareynayaan oo soo hasaawaya dhowr hablood buu ku yirina mariyade bas mid walba ku tiwarood naga tagood waalan tahay kadibna wax la marka dambe intuu xanaaqo mid wadada mareysay buu ku yirinaayaahay lafahaaga wax ma soo cuni imika waxa leeyay warag Soomaaliyeed oo lafihiina ajar ma u raadsataan ajarku waa sidee bay hadaba oran karaan xadiiska ah ee masaqa imraatahu alma ujra oo ah ninka gabadhiisa biyo waraabiya ajar buu helaya waa xadiiska imika firsana sheegay sheekha iyo firsana isku haystay marka rag Soomaaliyeed waxa leeyahay horta lafihiina ajar u raadsada waa marka koowaad marka labaad mid baa jirta ma aha in la yiraahdo waxa dhaqan buu ahaa dhaqan inaga dhigto dhaqanka waa laga tagi karaa laakiin waxa laga tagi karin waa diinta dhaqanku miyaanu ahayn sida ay farax sheegtay mid laga tagi karo dhaqanka lagama tagi karo dhaqanku wuu isbedeli karaa oo waxa isbedeli kartaa duruufaha nolosha iyo sida loo nool yahay yaa isbedeli kartaa laakiin dhaqankii hadduu wanaagsan yahay maxaa looga tagay markaana waxbay baran jirtay oo waxay baran jirtay sida weelka loo sameeyo sida waxan loo sameeyo sida awrta loo raro sida hararka loo dhiso sida qurux isu dheeli tiran oo aan nolosheena wax ku jirin waxan waa iska yeelyeel gaala lagu dayanaya inaga daaya kaasa romantiga uu la shaqeeyaa ha ay tahay in dar la mayro iyo in dar la mayro ba haday tahay dhaqan rag iyo hadaanay haynba doobiyada magaalada ugu waaweyn horta rag baa haysta oo ka shaqeeya hudheelada magaalada ugu waaweyn xitaa dhuumo dhiragna Allah ka dhigay ninka kuuga ka ahay waanin marka raggu horta mid hay isku soo lagu duudaan de doobigii baan furanaynaa oo dharkii baan lacag ka qaadanaynaa marka lacagna loo ruuxayana waa mayraynaa iyo in la yiraahdo dhaqan nin ma aha in dharka mayraan de labadaas way kala duwan tahay doobigina waad haysataa hudheelkii waad haysataa naani keerkii iyaga ba ka shaqeynaya meel ciyaalka lagu haynayay basaska ku qaadaya waxa dhan way jirtaa laakiin maxaa diidaya oo ka dhigay waayahay marka lagu soo shaqeynayana dhaqan rag markuu gurigiisa yimaadana maxaa ninka ragnimada ka qaadaya ee diidaya inuu qasaarada gabadharka kula mayro dhar qasaalka iyo dharyashiiladu ay dhex iman oo yaanay dhaariyay nin dhar maydhay maxaa raganimada horta ma waxaan qof waliba shaqadii kale uu qabanaya markii baahiyo timaado ee aanay cid kula joogin inaad kaliya tahay inuu kujada kula soo galo markuu kuuliyo uu ku sheekeeyo wax diidaya ma jiraan laakiin isaguna maalintiisa ha galo waa dhaqankii Yurub soo naqilanaysa wax meesha kuma jiraan gabadh wax baratay baan ahay diintuna ima diidina shaqaysto iyo inaan wax barto horta ma ii diidantay diintu midka aan isla fahamno ima diidana waa xaq aan leeyahay waxna waan baran kana waa shaqo hadaan rabana oo diintuna ii diidin maxaad iigu diidaysaa kuma haysaba ninkii baa ku shaqo tagayay ninku anigu ii shaqo tagay laakiin familkayga waxa laga yaabaa family dayar inaan soo jeedo familkayga hadaan wax weydiin maadaan ku qaabmise familkaagan qaabo oranaya hay aragtidaada sheegtay aragtidana waa lagu kala duway dood yar buu kula yeelan karaa waayo waa odagaagi walaalkii baa bilaa camal ah bishii markii kooda tahay ayaa masaariiftii guriga raacinaya haddaan kiro ku jirnana waa soo raacinaya